munaasabada aad u ballaaran oo xisbiga kulmiye ku soo dhaweynayay siyaasiyiin ka soo digarogtay xisbiga mucaaradka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa khaasatan hoolka ugu weyn Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa xafladaasi waxa ka soo qayb galay kumanaan taageerayaal odayaal cuqaal iyo waliba haldoorka Soomaaliland ugu horeyna waxa siyaasadda waxaana xafladda dhanka kalena waxa xafladaasi ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudan sidoo kalena waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ahna musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga kulmiye iyo waliba gudoomiyaha xisbiga muxaafidka kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi Maxamed Kaahin iyo waliba siyaasiyiin aad u fara badan oo kamid ah xukuumadda Soomaaliland iyo xubnaha kala duwan ee xisbiga kulmiye ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin sarsare oo dhamaantoodba soo dhaweeyay siyaasiyiinta ka soo digarogtay xisbiga wadani ee ku soo biiray maanta xisbiga kulmiye waxaanay dhamaantoodba si wada jira ugu soo dhaweeyeen xisbiga kulmiye waxaana kamid ah dadkii hadallada halkaasi ka jeediyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici Soomaaliland wayna deeqdaa waxay nagu deeqdaana inagoo wixii hagaajisana cadaalad ku soconna ayay nagu deeqdaa waxaan indheergaradkii iyo aqoonyahankii iyo waxgaradkii Soomaaliland hadday soo isku yimaadeen xisbiga kulmiye ilaahay mahadii weeyaan waxaan leeyahay nin maskaxda ka maaraya dhimana oo booro joog jira wuxuu yiri ayaa wuxuu jiray aayara magaalooy wayna wadaaqay war Soomaaliland wayna wadaaqaysa dhamaanteen kolkeen wax hagaajisano dhamaanteen wayna wadaaqaysa xil nagu deeqi mayso waxay nagu deeqaysaa in khayraadkeenu inoo wada gaaro ayay nagu deeqaysaa marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada xisbiga ku soo dhawaada anigu waxaan kamid ahaa dadkii xisbiga wadani waqtigii la aasaasay ururka sanadkii 2011 ka mid noqday kaalintii aan ku lahaa aasaaskiisa iyo qorshihii aan xisbiga ku lahaana waxa garan karayo oo kaliya ta gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro isaga ayaa og kaha waqtigii aan ku biiray kaalintii aan ku lahaana isaga og wadani wax badan ka oran maayo ee waxaan ka hadli doonaa ujeedada aan maanta kulmiye u imi ee aan mimbarka u soo istaagay maxay tahay layguma aqoon inta badan inaan mimbarada siyaasadda aan ka muuqdo waxaan doonayaa inaan madasha ka idhaahdo aan hadalka dheeraynaynin laba eray oo soo dhaweyna waxaan halkan ku soo dhaweynayaa xuduudii xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee aan ka tirsanaan jiray xildhibaanada culayska badan leh xogayaashii xisbiga hogaamadii laamaha kala duwan xubnaha kale firfircoon halkan fadhida hadday tahay xogayihii difaaca xogayihii xanaanada xoolaha hoggaanka abaabulka iyo wacyigelinta iyo rag kale oo culus halkaa jooga waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada xisbiga kulmiye ee aan muddada yar idinka soo horeeyay nimid taageero waxaanu kugu nimid toosin waad naga aqbalaysaa anigu hadiya jeeraa leh ina cigaal markaan la shaqaynayay waxaan ku idhi haddaan adeer sir wax kugu sheegi waayo caadkan kugu sheegaya muusoo ballankeenu waa sidaa haddaad sir wax iiga qaadan weydid oo cid kula talisan la waayo oo aad xadhigga marmarkoosatid qasab bay noqonaysaa inaan makfoonka u baxno waxaan rajaynayaa inaad dhegahaaga aad u furtid waxaad kaloo beenisaa muuse talada ma qaatena beeni waa beeno anigu waan ogahay anigu waan ku qaban jiray waan kula talin jiray waad qaadan jirtay waad ogaa laakiinse been baa la sheegayaa ilaahay wuu ku keenayaa talada waad qaadanaysaa taasuna qodob weeye waxaan kaloo leeyahay kulmiye wax badan buu qabtay ilaa dambeyntii waxa xafladaasi soo afmeeray gudoomiyaha xisbiga muxaafidka kulmiye Muuse Biixi Cabdi aanu halkaasi ka jeediyay khudbada aad u dheer oo dhinacyo badan taabanaysa waxaana hadaladiisi kamid ahaa waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa oo si kaliya laaba aanu u soo dhaweynaynaa haldoorka siyaasiyiinta Soomaaliland ee u badan xisbiga wadani ay ka mid yihiin xubnaha jiray u cid ee maanta aqoontooda
taageerayaashooda iyo xooggoodaba ku soo xoojiyey xisbiga kulmiye inay taageeraan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddii aanu nahay bahweynta kulmiye waad mahadsan tihiin jasaakumullahu khayr soo dhowaada ayaanu leenahay muuse folge telefishinka caalamiga ee Somali News Hargeysa.